hay soo dhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada season kale oo aad u xiiso badan kaas oo soo baxay sanadkan hadda ku jirna ee 2026 muuqaalka laagsaar waa canshuur kaliya kugu leeyahay sidoo kale ku soo biir janaalka dii aadan weli ku soo biirin waxa saarana wadadii ay ku gaari lahayn 200,000 oo subscribe intaas dii aad samaysay aad ay u maasantahay koobkaada shaaha soo qaado haddana aan gudagalna muuqaalkeena bilowga muuqaalkan waxaana la tusayaa atriishada filimkana taasoo Liam lagu magacaabay Liam ayadu waxay dareemaysaa nolosha ay hadirtan ee ku nooshahay xoogaa inay ku waxayna go'aansanaysaa inay magaaladan iskaga fogaato weliba nolol cusub ee bilaabato maalinka xiga ayayna ka soo tagaysaa magaaladii ee ku nooleed waxayna soo aadaysaa magaalada ee ku dhalatay ayadana dhab ahaantii wejigeeda murugo fara badan ayaa ka muuqday waxaana dareemaynaa nolosha oo dhan inay ka quusatay ugu dambeyntiina waxay soo gaaraysaa guriga awowgeeda asagana waa uu geeriyooday laakiin inta uusan dhimanin ka hor warqad ayuu u reebay wuxuuna ku dhahayaa noloshaada waa inaa hore usii wadataa weliba booskii macalinimada ee aniga ka baxay waa inaa buuxisaa midaas ayaana dhacaysa oo Liam ugu dambeyntii ay qaadanaysaa dardaarankii awowgeeda shaqadii macalinimo ee iskuulka ayna isku soo diyaarinaysaa ayadoo aad ugu faraxsan midaasi waxayna dib ay ugu soo laabanaysaa qolkii sawirka awowgeeda uu ku jiray waxay u sheegaysaa ugu dambeyntii magaaladii ee ku dhalatay inay dib ay ugu soo laabatay weliba dardaarankiisii ee qaadatay haddana ayada ay rabtay inay nolol cusub ee bilaabatay si ay deganaan ee ugu noolaato intaas wixii ka dambeeyeyna Liam waa ay soo baxaysaa oo iskuulka ay soo aadaysaa sidoo kalena waxaan ogaanaynaa Liam ayada iskuul inay mar hore ee dhamaysay weliba jaamacaddii xitaa ay ku dartay waxayna baratay maadada cilmi nafsiga shahaada ayayna ka wadataa ugu dambeyntiina waxay imaanaysaa iskuulka ee u soo socotay agaasimaha iskuulka ayayna la kulmaysaa agaasimahana markii uu arko shahaadooyinkeeda waa uu la yaabayaa wuxuuna weydiinayaa ayada sababta ee u rabta inay halkan ay ka shaqayso maxaa yeelay shahaado wanaagsan ayaa wadata ayuu ku dhahayaa meelaha halkan ka fiican ayaana shaqo ka heli kartaa laakiin Liam ayaa ku dhahayso shaqadan aad ayay u fududahay anigana wax dhibaato ah kuma qabo waxaana rabaa inaan booska macalinimada aniga buuxiyo weliba halkan aan ka shaqeeyo haddii adiga iga ogolaanayso ugu dambeyntiina agaasimaha codsigeeda waa uu tixgelinayaa ayadana sidaas ayaa lagu aqbalayaa intaas wixii ka dambeeyna waxa uu keenayaa qolkii ay ku jireen qalabka loogu talagalay ciyaaraha xilligaasina qolka Zaid ayuu iskugu qasnaa oo alaabta waa ay isdhex yaaleen hadeertaana Liam ayaa loo baahan yahay ayada alaabaha inay kala toosiso weliba sida ay iskugu aadan yihiin ee hal meel ay iskugu dhigto inta ay shaqadeeda ee bilaabanina agaasimaha ayaa ku dhahaya ardaygii ku imaado weliba ku weydiisto wax qolkan ku jiro adiga ha isku siinin ilaa aniga ku soo amro oo si ku dhaho ma ahe adiga si kale kuma siin kartid intaas wixii ka dambeeyna furihii ayuu ku xil wareejinayaa waa uuna iskaga tagayaa Liamna markay qolkay dib ay ugu soo laabto waxay arkaysaa arday Jan lagu magacaabo oo daaqada ka soo galayo asagana waa uu la yaabayaa markii uu arko wuxuuna weydiinayaa ayada cidda ahtaa iyo wixii halkan ay ka sameynayso Liam ayaana u sheegay in macalinka cusub ee qolka furahan Hendon ee ayada ee tahay waxayna ku dhahaysaa maanta ayaa ugu horeysay shaqada ee adiga maxaa halkan ka soo doontay Jan waxaan ogaanaynaa asiga inuu rabo inuu kubad u qaato weliba uu ku soo ciyaaro intaas wixii ka dambeeyna Liam ayaa weydiinayso magaciisa iyo fasalka uu dhigto laakiin waxaa dhacayso Jan inuu la wadaago magacaanan jirin iyo weliba fasal uu asiga uusan dhiganin Liamna waa ay aaminaysaa waxayna u fasaxaysaa kubadda inuu qaato weliba uu ku soo ciyaaro midaasina saacadooyin fara badan ayaa ka soo wareeganayso Jan asiga weli kuma uusan soo celinin kubadda qolkeeda intaas wixii ka dambeeyna ayadu waxay go'aansanaysaa inay raadiso weliba ee fasalkiisa ee tagto fasalka 12aadna markay ay imaado waxay ardayda ay weydiinaysaa ardayga lagu magacaabo Shinha arday oo Shinha lagu magacaabo ayaan ku dhahayo waa aniga Shinha laakiin adiga aqoonku ma lihi intaas wixii ka dambeeyna ayadu waxay u sheegaysaa ardaygii kubadda ka soo qaatay iyo fasalka uu u sheegay weliba magaca uu la wadaagay ayagana isla markiiba ay garanayaan waxayna ku dhahayaan asiga been ayuu ku sheegay magaciisana Shinha ma ahan ee waa Jan hadeertaana qaybta hoose ayuu kubadda ku ciyaarayaa ayay ku dhahayaan waa ayna ka tagayaan intaas wixii ka dambeeyay isla markaasi Liam si ay kubadda aga soo qaato garoonka ay ugu imaanaysaa xilligaasi Jan asiga halkaas ayuu joogay oo kubadda iyo asxaabtiisa uu la ciyaarayay Liamna waxay iska fadhiisanaysaa ninkoo meesha fadhiyay asagana waxaan boogaanaynaa inuu yahay atoora filimkeena Won ayaana lagu magacaabay Liam xilligaas ayada jukuleed ayay cunaysay waxayna dareemaysaa Won ayada inuu fiirinayo malaha jukuleedka cunaa ayuu rabaa ay isdhehaysaa waa ayna u soo taagaysaa waxaana dhacaysa Won jukuleedkii ay cunaysay oo dhan inuu ka qaato midaasina waa ay la yaabaysaa isla markaasina garoonka nin beenaale ayaa imaanayo Won ayaana Liam ku dhahaya ninkaas waa beenaale dhalinyarta kubadda halkan ku ciyaaraysa ayuuna mar walba uu been u sheegaa wuxuu u sheegayaa inuu ka socdo koox weyn ah oo la yaqaano dhalinyarta ayuuna lacago uu ka qaataa isagoona u sheegaya kooxdaas akademiyadeeda inuu ku dari doono isla markaasina Liam ayada waa ay soo kacaysaa oo waxay soo aadaysaa halkii ninka uu joogay markay u imaad ayayna ku dhahaysaa kabaran agaasimaha iskuulka adiga haddii aan kula kulansiiyo waa lagu dalacsiin doonaa welibana mushahar fiican ayaa lagu siin doonaa laakiin xariifkii beenaalaha waa uu diidaya isagoo ordaya ayuuna meesha uu iskaga tagayaa sidoo kalena Jan asiga kubaddii uu Liam uu ka soo qatay uma celinayo ee waa uu ka ordayaa Liam ayaana ku dhahaysaa agaasimaha ayaa arrinkaada la wadaagi doonaa
doonaa asagana waa uga xubsanayaa intaas wixii ka dambeeyana kubaddeeda dib ayuu ugu soo celinayaa waxay ahaataba Liam ayada won ayay u mahadcelinaysaa maadaama uu boorsadeeda uu maanta oo dhan uu ilaalinayay laakiin QR ayuu tusayaa wuxuuna ku dhahayaa halkan waa inaa iskaan ka qaadaa ayadana marka hore waxay u maleysay widgetkeeda inuu ka dalbanayo si ay labadooda ee saaxiibe u noqdaan laakiin won wuxuu la wadaagayaa widgetkeeda inuusan u baahnayn laakiin lacagta oo boorsada uu ugu ilaalinayo uu u baahan yahay intaas wixii ka dambeeyana marka Liam siisa lacagtiisa waa ay ka soo tagaysaa halkaasi maskaxdeedana zaid ayay u shaqeynaysay waxayna isweydiinaysay maanta khasaarooyinka ee gashay weliba lacagaha ka baxeen ayada aniga xitaa waxa isweydiinayaa adiga muuqaalkan like ma saartay masuuli ma aadan saarin haddii aad saartayna qaybta hoose ee commentiga kaliya waxa ay igu soo qortaa ha waa saaray habeenkaasina won ayaa arkayna asagana xilligaasi baraagta qubayska ayuu ku jiray wuxuuna xasuusanayaa waxyaabihii ugu xumaaya isaga noloshiisa soo mareen kuwaasoo asaga saameyn ku yeeshteen maalinka xiga Liam ayada iskuulku waxay imaanaysaa xilli hore kulan la qabanay ayaa jiray ayadana waxay rabtay inay kulankaasi ay ka qayb gasho ugu dambeyntiina kalfadhigii ayaa bilaabanaya oo miiska ayaa laiskugu imaanaya agaasimaha ayaan ku dhahayo waxa rabaa mas-uuliyadda kubadda cagta ee kooxda inaan qof ku xil wareejiyo waxa u baahana ayuu ku dhahayaa tayadii ee kooxda ee lahayd in dib loo soo celiyo macallimiintii halkaasi joogeen ayuuna ku dhahayaa yaa la xil wareegayo tayada soo celinta kooxda laakiin dhammaan macallimiintii waxaa dhacaysa inay arrinkan ay marmarsiye u samaystaan qof walbana wuxuu sheegayaa inuusan awoodin asiga tayada kooxda inuu dib u soo celiyo maxaa yeelay arrimo kale ayaa faraha kula jirna ayay ku dhahayaan agaasimaha intaas wixii ka dambeeyana agaasimaha mas-uuliyadda kooxda wuxuu ku xil wareejinayaa Liamna ayada midaas waa ay aqbalaysaa laakiin weli ma aysan fahmin sida waxay u socdaan ugu dambeyntiina kulanka halkaas ayuu ku soo dhammaanayaa Liam markale waxay dib ugu soo laabanaysaa agaasimaha waxayna u sheegaysaa ayada waxyaabaha ay soo baratay inuu ka mid yahay cilmi nafsiga weliba ay shahaado ee ka haysato laakiin arrimo ku saabsan footballkan ayada inaysan garanaynin ay la wadaagaysaa laakiin agaasimaha ayaa ku dhahaya adiga waxa soo baratay waa ku gooni oo adiga ayaa soo baratay tanna waa hibo loo baahan yahay adiga in iska soo dhex saarto weliba aad ku maamusho kooxdaani maadaama cilmi nafsiga aad soo baratayna adiga midan waa ayba ku sii caabinaysaa ugu dambeyntiina midaas waa uu ku qancinaya wuxuuna la wadaagayaa liiska ciyaartooyda wuxuuna u sheegayaa inuu u balaminayo weliba kalfadhi ee la yeelan doonto sidoo kalena wuxuu u sheegayaa kulan saaxiibtinimo inay soo ciyaari doonaan mar dhow asagana uu kooxda u balamin doono intaas wixii ka dambeeyana Liam ayada wakiilkeeda ayaa soo wacayo wuxuu u sheegayaa ugu dambeyntii kireysto cusub inuu helay laakiin wuxuu ku dhahayaa kireysta wuxuu ku adkaystay asiga baraakadu asaga uu leeyahay weliba midda qubaysta inuu guriga u keensado anigana waa ka aqbalay ayuu ku dhahayaa arrinkaasina haddeertan waa la kala tuuray oo baraagada guriga ayaa loo keenay hase haatee midaas Liam ayaa ka xanaaqaysa oo waxay ku dhahaysaa sidee loo rakibi karaa adigoo aadan ila soo wadaagin ayadoo ordaysa ayayna gurigeeda ay dib ugu soo laabanaysaa laakiin markay imaanaysay waa mar hooshii oo dhan la kala tuuray wakiilkeeda ayaana ku dhahaya adiga midaan looma baahna inaad ka welwasho qarash walbo ayada ku baxayna ninka kireysta ayaa bixiyey asiga ayaana halkaani keensaday haddii ay dhibaato ee ka imaadana aniga ayaa asiga kala xisaabtami doono hase haatee Liam ayaa ku dhahaysa kabaran biyaa ilaa iyo dhulka haddii ay soo gaaraan oo aniga i saameeyaan wakiilkeeda ayaana ugu jawaabayo adiga ha ka walwalin asiga waa taajil wax walban waa uu xalin doonaa intaas wixii ka dambeeyana wakiilkeeda waa uu ka tagayaa guriga Liamna si ay u hubiso baraagada waxaaba dhacaysa tubadii inay furto laakiin guriga oo dhan hal mar ayuu biyuhu isqaadaya waxaana dhacaysa ayada inay garan wayso qaab ay u xirto biyahani intaas wixii ka dambeeyana won ayaa u imaanayo asiga ayaana xirayo biyaha intaas wixii ka dambeeyana wuxuu la wadaagayaa asiga inuu yahay kireysta cusub oo guriga la soo degay labadoodan halkaas ay si fiican ay iskugu sii baranayaan maalinka xigan xilli hore Liam ayada waxay imaanaysaa iskuulka maadaama maanta ay kalfadhi ay la yeelanayso ardayda ayada tababaraha looga dhigay hase haatee fasal kaliya hal arday oo fuul lagu magacaabo ayaa joogay asagan Liam ayuu ku dhahayaa macallin ardayda kale waa ay imaanayaan ee adiga iska fadhiiso oo iska naso midaas ayaana dhacaysa ardaydana si tartiib ayay fasalka u soo galayaan ilaa ugu dambeyntii ay dhammaantooda ay soo wada xaadireen Liam ayaana ku dhahaysa anigu waxa lagu soo xil wareejiyey mas'uuliyadda ciyaartooyda waxaana rabaa ay ku dhahaysa tayadooda in dib u soo celiyo weli foomkii ay lahaayeen ay ku soo laabtaan markii ay sheega dhammaantiin ma u baahan tihiin in mar kale ciyaartooy aan noqotaan hase haatee intooda badan si xun ay arrinkaasi aga falcelinayaan waxayna u sheegayaan midaas inaysan raali ee ka ahayn intaas wixii ka dambeeyna fasalku waa ay ka baxayaan hase haatee Fu ayaa ku dhahayo macallimad anigana waa kula dadaali doonaa adigana waxa loo baahan yahay inaad dadaasho ayagana waa ay soo laaban doonaan ayuu ku dhahayaa adiga looma baahna midaas inaad ka welwasho Liamna habeenkii ay gurigeeda dib ugu soo laabanaysaa markii guriga ku soo laabatayna waxay u maleysay won asaga waa hore inuu seexday laakiin markii gudaha u soo gashay waxay maqlaysaa muusik imaanayo halkii won uu deganay mar kale ayayna ogaanaysaa won inuusan weli u seexanin intaas wax ka dambeeyna isla markiiba wakiilkeeda ay soo wacaysaa waxayna ku dhahaysaa anigoo ah milkiilaha guriga waxa rabaa inaa kireysta ka ogaado xog asiga ku saabsan xitaana ma aqaan ayay ku dhahaysaa inuu tuug oo yahay weliba booliska uu ka dhuumanayo sidoo kalena waxaa laga yaabaa xaalad maskaxeed asiga inuu qabo lagana
yaabo inuu gurigu igu dhex dilo marka wax walbo dhibaato asiga ka imaada adiga ayaa mas-uuliyadeeda qaadi doontida iyo ku dhehaysa intaas wixii ka dambeeyna banaanka iyo guriga aga soo baxaysa hase haatee islamarkaas waxay arkaysaa Won oo qaybta sare taagan waxayna ku dhehaysaa ilaa goorme ayaa halkaani taagnayd asigana wuxuu ku dhahayaa ilaa wakiilkaada aa kala hadlaysay oo dhan aniga halkan ayaa taagnay waa aan ku maqlaayay intaas wixii ka dambeeyna habeen wanaagsan ayuu ku dhahayaa waa uuna ka tagayaa haddana mar kale subaxdii xigta ay labadooda ee kulmayaan asagoo jimicsi ka imaaday iyo ayadoo shaqadeeda u socoto ardayda ayna u diyaarinaysa baski ay ku bixi lahaayeen maxaa yeelay maanta kulan saaxiibtinimo ay rabaan inay soo ciyaaraan ardayda intooda ugu badan waa ay iskugu imaanayaan halkii laga bixi lahaa laakiin hal arday ayaa ka maqnaay intay ardaygaasi sugayeen waxaba dhacaysa ayaga macalimadooda inay dhibaan calaashaan ee foodeeyaan ayadan midaas waxba kama soo qaadays oo hadaladooda waa ay iska dhegaysanaysay wixii haataba ugu dambeyntii halkii ay joogeen agaasimaha ayaa imaanayo Liam ayuu nagu dhahayaa waqtigii waa uu dhammaaday ee halka maxaa ka samaynaysaan ayadan waxay u sheegaysaa hal arday inuu ka maqan yahay weliba ardaygaas ay sugayaan laakiin ka taga ayuu ku dhahayaa isaga ayaa imaanayo meesha ciyaarta ee ka dhacayso midaas ayaana dhacaysa oo ugu dambeyntii waa ay kasoo tagayaan ardaygii la sugayay laakiin garoonka markay imaadaan waxay boogaanayaan ardayga inuu meesha uu aga soo horeeyey waa sida loo baahnay ugu dambeyntiina garoonka iyo gudaha ay usii galayaan waa ay diyaargaroobayaan maxaa yeelay ciyaarta inay bilaabatay xilli yar ayaa ka haray dhab ahaantiina Liam kooxdii ay wadatay markay arkaan kooxdii ay la xifaaltami rabeen ayaga indha ayaa ka soo haray waa ayna la yaabayaan maxaa yeelay waa laya tayo wanaagsanay calaashaan ardaydaas kale qalabka ay wataan iyo ardayda Liam qalabka ay wataan isku mid ma uusan ahayn sidaas awgeedna waxaa laga yaabaa in laga adkaado ayaga weliba guuldare ee halkan ay aga laabtaan wixii haataba Liam ayaa bilaabaysa ciyaartooydeeda inay dhiirigeliso waxayna u sheegaysaa halkan inay u joogaan guul iyo guuldaraba laakiin ay ku dadaalaan sida ay saddexda dhibce ay aga qaadan lahaayeen weliba ay ku guulaysan lahaayeen ugu dambeyntiina ciyaarta ayaa bilaabanayso sidoo kale waxaan ogaanaynaa Won inuu halkaasi u joogo ciyaartan uu daawanayo Liam ayaana arkaysa ayadan waxay isweydiinaysaa wuxuu halkan uu ka sameynayo intaas wixii ka dambeeyna way u imaanaysaa waxay ku dhahaysaa halkan waxa uu imaaday in ciyaarta aad daawato Won isagana wuxuu ku dhahayaa dhanka garoonka waa inay u jeesataa maxaa yeelay ciyaartu waa ay bilaabatay Liam kooxdeedan maadaama laga tayo wanaagsanay weliba laga qalab wanaagsanay waxaa dhacaysa bilowga ciyaarta in laga dhaliyo gool gooshaasina waqti fara badan kama soo wareeganayso haddana waxaa dhacaysa in loo labeeyo arrinkaasina dhab ahaantii Liam welwel fara badan ayay ku qabanaysaa hase haatee Won ayaa ku dhahaya ma u baahantahay adiga inaad ku guulaysato kooxdani Liam midaas ayadoonan ka fikirin ha ayay ku dhahaysaa intaas wixii ka dambeeyna QR-kiisa ayuu tusaya oo wuxuu ka qaadayaa lacagihii uu howsha uu ugu qaban lahay intaas wixii ka dambeeyna kambida markii la marayay ciyaartooydeeda ay u keenaysaa Won waxayna u sheegaysaa inuu yahay saaxiibkeeda yaraanta weliba isaga uu tababaro uu soo ahaan jiray waxaanan ogaanaynaaba isaga Won inuu tababaro hore uu soo ahaan jiray ardaydan ayaga marka hore waa iyeesayeen oo xoogaa kuma aysan qancin laakiin Won ayaa la wadaagayo wax walbo tababaro laaga baahnay ugu dambeyntiina ayaga waa ay ku qancayaan hadaladiisa wuxuuna ku dhahayaa hadeertan qofkii ay aaminaya asiga ayay u taalaa qofkaanan ay aaminaynin asiga ayay u taalaa muhiimadan aniga ma ahan ee waa idinka maxaa yeelay idinka guul ayaa raadinaysaan intaas wixii ka dambeeyna waa uu dhiirigelinayaa wuxuuna u sheegayaa meelaha uu ka jiro qaladaadkooda sidoo kale wuxuu la wadaagayaa in loo baahan yahay qaabka ay u ciyaarayaan inay waxay ka bedelaan midaas haddii ay dhacdan guusha idinka ma raadin doontaan ayuu ku dhahayaa ee ayada ayaa idin soo raadin doonto ugu dambeyntiina kambiga waa laga soo laabanaya oo ciyaarta dib ayay u bilaabanaysaa isla markiiba Liam kooxdeeda waxaa dhacaysa hal gool inay soo bareejeeyaan Liam waa ay la yaabaneed kooxdeeda maxaa yeelay tayadooda waxa uu muddo inay dib ay ugu soo laabatay haddana waqti fara badan kama soo wareeganayso waa ay labeenayaan Liamna Won ayay u imaanaysaa waxayna u sheegaysaa asiga aad inuu u mahadsan yahay maxaa yeelay waa uu caabiyey laakiin Won ayaa ku dhahaya looma baahna inay ii mahad celiso maxaa yeelay aniga lacag ayaa kaa qaatay oo free wax kuguma aanan sameynin ciyaartan bareejo ayay ahayd laakiin Liam kooxdeedu waa ay sidexeenayaan maalinkaasina waxaaba dhacaysa guusha inay dhankooda ay soo marta calaashan ee ayaga ay guulaystaan midaanin shock ayay ahayd maxaa yeelay dhammaantooda ismeenan lahayn xitaa gool ayaa dhalinaysaan inay guulaystaan iskaba dhaafe seasonkeena qaybtiisa koowaadna halkan ayuu inoogu egyahay muuqaalka lagsar haddii aadan weli saarin sidoo kale sii shargaray oo la wadaag saaxiibadaada waa saaxiibkiin Mohas oo idin leh intaan kaga kulmayno muuqaalkan muuqaalka xiga bye bye